barnaamijka cayaaraha waxaan rabaa inaan ku soo qaato cayaarihii adduunka oo lasoo gabagabeeyey taasoo Spain ay ku guuleysatay koobkii adduunka waana wax la filayay oo waxaan qabaa in wadanka Argentina ay ku soo tala gashay in ay wax qaqashada ama gool aan la filayn ay ku guuleystaan ama ay la gaaraan gool kulaad ay la gaaraan Argentina iyo Spain markii la isbarbar dhigana Argentina runtii uma dhawa kooxda Spain oo waxa u dhaxeeya farqi weyn ayaa u dhaxeeya si kastaba haatee ciyaartoyda Messi iyo ciyaaryahanka Julian Alvarez oo horay u joogay suurtagal uma ahayn inay cabsi ku sameeyaan ama ay kooxdaas wax un ay ku sameeyaan Messi waxaan la soconaa 54 mar kubadda inuu taabtay taasoo hal kamida uusan xariiqinta 18 Spain uusan ku taabanin taasoo banaanka lagu ilaalinayay taasna ay u suurta gashay Spain wax cabsi inaan la gelin oo hal mar xataa goolkooda la toogan waxyaalaha ugu waaweynna waxay u badnaayeen ciyaartoydii Spain andhaha Argentina inay isdifaacayeen qaasatan ciyaartoyda dhexdooda dheelaysa oo la rabay inay weerarka ay caawinaan waxay aad iyo aad u caawinayaan ciyaartoyda difaaca Enzo Fernandez oo markii dambe 90 daqiiqo markay mareysay calaamadda gaduudka la siiyay iyo McAllister iyo dhexda u joogeen iyo De Paul ayaa u joogeen ciyaartoydaasna waxay aad iyo aad ugu mashquulsanayeen in ay caawinaan ciyaaryahanada oo difaaca joogay Argentina ciyaarta bilowgeeda ilaa dhamaadkeedii difaac ayay ku jirtay taasna ma ahayn wax ayaga ay doorteen waa wax lagu qasbay ayayd oo waxaan la soconaa wadanka Spain inuu ahay koox aad iyo aad kubadaha isku dhiibayso inkastoo fursado badan ay abuureen oo ilaa 12 mar ay goolka toogteen guud ahaan 20 ay toogteen laakiin 12 mar ayay ku aadiyeen oo goolayaha wuxuu ka badbaadiyay ay u badnaayeen si kastaba haatee goolashaas laga badbaadiyay waxay noqotay taariikhda kubadda cagta in goolaye ciyaar walkaaba oo final in lagu toogtay intaas waxyaalaha kale ugu waaweyn waxaa kaloo kamid ah ciyaaryahanka Rodri oo noqday ciyaaryahanka ugu fiicnaa ee ciyaarihii adduunka ciyaartoydii ka soo qayb gashay oo waxaan la soconaa Rodri run ahaantii inuu ciyaar aad iyo aad u fiican soo bandhigay 101 kubadna oo baasay meeshaas oo ciyaarta oo dhexda haystay oo gadaal ka soo qaaday kubadda hore oo u gudbinayay oo ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo soo bandhigay kubadahana oo dhinacaha u kala bedelay taasna ay sababtay in Spain kubadda haysashada ay wadatay inuu qayb weyn oo ka ahay iyo ciyaaryahanka kale laftigiisa ee difaac uga dheelayay Kubasi kaasoo Barcelona u dheelo oo jira ciyaaryahankaas 19 jir waayo runtii waana difaaca dhexda ayuu ka dheelaa laftigiisa 125 mar ayuu kubadda oo dhiibay taasna waxay ku tusaysaa nin difaaca oo 19 jira oo intaasoo kubad soo dhiibay inaysan sahlanayn oo ka qayb qaadanayo kubad dheelidda oo kubadda markay haystaan inuu dhexda laftigiisa uu imaanayo oo kubaddaas oo dhinac ka waday taasna oo runtii Spain ay ku dhisnayd oo Argentina ay ku qasabtay inay gadaal ay u sakato markii la isku soo duuduuba Spain 852 kubad ay isku dhiibeen meesha Argentina 464 kaliya ay isu dhiibeen taasoo ku tusayso inay aad iyo aad ay ugu hooseysay Argentina runtii waxaan qabaa inay finalka ay timid inay wax ceeb ay ka qaado wax faa'iido aysan ka qaadan Kubasina oo noqday ciyaaryahankii ugu yaray ugu da'da yaraa ugu fiicnaa ciyaaraha World Cup inuu noqday Rodrina ciyaaryahankii ugu fiicnaa inuu noqday ciyaaryahankan kale Ferran Torresna inuu noqday ciyaaryahankii ciyaartaas dhacaysay Argentina iyo Spain inuu noqday kaasoo guusha oo u dhaliyay oo inta badanba waxaa la tagtay Spain goolhayooda Simons wuxuu noqday goolhayay ugu fiicnaa oo hal 8 ciyaar ay ciyaareen hal gool kaliya ayaa laga dhaliyay oo 7 ciyaar waxba lagama dhalin wuxuuna ku guuleystay anda golfis goldanka oo ku guuleystay geedaha gacmaha la gashto ayuu ku guuleystay goolhayay ugu fiicnaa ayuu noqday guud ahaan markii la isku soo dardaro runtii Spain way u qalantay inay guul ay la tagto oo ciyaar waxay la timid inay ayada inay rabto inay guuleysato laakiin kooxda Argentina lama imaan taasoo inta badan qaladaad ay galayeen hase yeeshee garsooraha qaar badan oo iska indha tiray hase yeeshee qaar oo iska indha tiri waayay oo yellow iyo oo ku bixiyay taasoo sababtay Enzo Fernandez
in la bixiyo runtiina laba koox oo isku dhow ma ahayn cayaaryahan kale Yamil Yamal oo laftigiisa 19 jira inkastoo dhaawac uu kasoo kabsaday haddana runtii ma qaba cayaar aad iyo aad u fiican inuu soo bandhigay inkastoo xoogaa cabsi uu ku hayay kooxda ee Argentina laakiin wuxuu la tegay koobkii ayuu la tegay Yurubna waa qaaday koobkii adduunkana way qaadeen Spain runtii waxaan qabaa inay tahay kooxii meesha kooxda ugu fiicneed 2030 waxaa lagu qaban doonaa Portugal, Spain iyo Morocco ayaa lagu qaban doonaa oo ciyaaryahanada yaryar hadda u soo socdo hadday saas ku sii socdaan waxaan isleeyahay koobka adduunka dib ayay u ceshan doonaan 2030 ilaahay haddii uuna gaarsiiyo si kastaba ha ahaatee Spain ciyaartii ay soo bandhigtay iyo sidii kubadda u dhiibaysay iyo sidii u dhaqaaqaysay iyo xataa ciyaartooyda oo gadaal ka yimid oo Ferran Torres gadaalaa laga keenay Michael Moreno gadaalaa laga keenay Nico Williams gadaalaa laga keenay ciyaartooydii bedelka lagu keeno Spain wax weyn ayay soo kordhiyeen oo lama dareemayn kuwii baxay iyo kuwii soo galay farqi weyn inuu u dhexeeyo inkastoo Nico Williams markuu soo galay laftigiisa oo aad iyo aad u fiicnaa culayska iyo maal saarnaa oo dhinaca kale u wareejiyay oo dhinaciisa cabsi weyn Argentina ay ka soo kortay marka Spain waa u hambalyeynayna waana kooxda u qalantay inay koobka ay ku guuleysato inkastoo inta badan Faransiiska aan dhehne Argentina waxaan la soconnaa in muddo dheer lasoo riixay lasoo waday laakiin ugu dambeyntii ceeb ayay la tagtay oo waxaan isleeyahay waxay ka gaartay maxaa finalka ina keena ayay ka gaartay taasoo Messi hal mar uusan xariiqinta 18 Spain uusan gelin marka 54 keliyan oo koobka oo kubadda oo taabtay taasoo aan fahmi karno Messi inuusan meesha u joogin inuusan caawimaad haysanin marka Spain runtii waxaan qabaa inay tahay sida la rabo in kubadda cagta loo dheelo inayna tuseen ay tahana sida loo cayaaro iyo sida kubadda tartiibka la iskaga soo saaro iyo sida weerarka loo galo iyo sida kubadda xaqiijinta loogu dhiibo oo 65% kubadda xataa ayaga ayaa ka hayay oo waa laga hayay inta badan 34 keliya ayay haysteen Argentina taas marka waxay ku tusaysaa awoodda u dhaxaysa farqiga u dhaxeeya Spain iyo Argentina inay aad iyo aad u kala duwan yihiin marka waxaan leeyahay congratulations Spain oo inta badan aan filayna oo laftigeyga aan u saadaalinayay Spain ama Faransiiska labada mid kamid ah ayaana ku guuleysatay oo Spain ayaa ku guuleysatay runtii Argentina runtii wax ay meesha ku haysay maysan jirin oo finalka imaatinkii ay timidna qasaare ayay ka qaaday iyo magaxumo ayaan isleeyahay iyo cayaar ay la timid cayaar ay soo bandhigtay maysan jirin difaaca ay gashana ay ku jirtay ma aha mid ayaga ay doorteen waa mid lagu qasbay ayay ahayd inay difaac ay galaan ay is ilaaliyaan marka Spain waxaan leenahay congratulations waxaan tiin kooxda ugu fiican 48 koox ee ka soo qayb gashay cayaaraha adduunka